Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Reer horumari madbaqaaga aad ayaan idiin salaamay meel kastoo aad kale ka joogtaan. Insha Allah waqtigu ha idin wacnaado. Maanta waxaan sameysanaa wasfo maasha Allah inaba caadi aan ahayn. Kackac baan sameynaynaa soo dhawaada. Asxaabay halkan mudeemadan waxaan kusoo shubayaa 5 bakeeri oo daqiiq caadiya. Bakeeriga waxa weeyaan kii adiga kulba aad jeclaato unbaad ku qiyaasan kartaa laakiin koobka biyaha dhexdhexaadka ah ayaan kusoo qiyaasay anigu 5 bakeeri oo koobkaasa. Waxaan kusoo darayaa xabad beeda halkaasaan u kala yar faray yacni beedkan kusoo ridi doonaa insha Allah. Beedka markaan saa ugu soo rido waxaan kusoo dari doonaa haddii ilaahay yiraahdo 4 mulqaacadood oo saliidda cuntada aan ku darsano ah. Subagna waan ku bedelan karnaa, subdana waan ku bedelan karnaa. Asxaabay waxaan kusoo daray 2 mulqaacadood oo sonkor ah. Waxaan kusoo darayaa insha Allah mulqaacad yiis ah ama fixiso kolba sidii loo yaqaano khamiiro. Waxaan kusoo daray vanilya mulqaacad ama baakad gaar 10 gram weeyaan. Asxaabay waxaan kusoo daray rasho yar oo milix ah ama in yar oo milix ah. Waxaan kusoo darayaa 3 mulqaacadood oo caano powder ama xalib powder ah. Caanaha powderkii muhiim ayay u yihiin kackacan. Asxaabay waxaan ku darayaa 2 qadro oo mulawan yellow ama huruud ah. Waxaan dabatana intaas ayaan isku yar walaaqayaa marka intaas dhex geliyo ay is yar dhex gasho. Waxaan ku xashayaa biyo diiran. Caano diiranna waad ku xashi kartaa. Laakiin biyaha diiran ama caanaha diiran muhiim ayay u yihiin yacni qaar qabow kuma shaqaynayo. Markaas intaan halkaas isugu geeyay madeebada dhexdeedii halkan aan doonaya inaan si aad ugu xasho oo xor ah. Daqiiqda way kugu dhegdhegaysaa haddii ka adkaato quraacuna waa adkaanaya laazim waa inay jilicsanaato. Markaan soo xashay si fiican soo xashay madeebadan ku soo riday halkaas ay ilaa 30 daqiiqo inoogu daboolnaanaysaa. Asxaabay way soo faxday waana jilicsan tahay inay xoog u soo kacdo madeebada buuxisano looma baahna. Asxaabay waatan halkan miiska ayaynu kaga shaqaynaynaa ugu horreynba hawada ayaynu ka saaraynaa kadibna waanu jarjaraynaa kuura yar ama kubad yar baynu u googoynaynaa. Xajmi yar oo iswada leeg ayaynu ka dhigaynaa. Markaas xajmi yar oo iswada leeg saas ayaan uga dhigay kulli miisaan maan saarin laakiin gacantaan ku qiyaasay. Asxaabay markaas sidan ayaynu u tashkiilinaynaa. Xarig ayaan marka hore ka dhigayaa saasoo kale sayday sidii xariga iigu soo hanto. Markaan sidaa u dheereeyo ayaan sidii xariga saa isugu soo marayaa wataade maasha Allah. Marka saas ayaan ku dhamaystirayaa. Asxaabay dadku way ka cawdaan kackacan in badan. Dadka cabanaya ayaan arkay oo meelaha qaar u yaalana waan arkay oo isagoo dusha ka madow hoosta qoshka ah kiyo aan kala kicin oo dhegsan oo isku dhagan oo aad u adag markaas iskala jaristiraahdo. Kulli wax ka qaldan ama maqaadiirta ama qaabkay u shiilayaan ama qaabka u fixiyeen xoog haduu faxano waa adkaada baalkan biyo qabow hadii lagu qoosho waa adkaada hadii saliid lagu darin waa adkaada. Marka asxaabay waan idin soo shiilay saliid ayaan ku shiilaynaa. Dabka hoos haynoo xigo aan mutawassit haynoo ahaado kor yaanu inaga noqon marnaba. Insha Allah waxaan rajeynayaa inaan ka wada faa'iideysanay. Asxaabay wataa saas ayaan ku soo dubay hadda sonkortii ayaan dhex gelgelinayaa. Sonkorta mar hore ayaan kariyay shiirada waan wada naqaanaa sida loo sameeyo. Sonkortii iyo biyihii iyo vanilyo iyo isku soo karkarinay weeyaan. Qofkii rabaana liin macaan iyo liin dhanaan buu ku darsan karaa dhanaanka yar rabo. Markaas saas ayaan shiirada u wada gelgelinayaa oo aan ugu qoynayaa. Shiiradu laazim waa inay qoyso. San ayuu yahay maasha Allah. Jawsal hindi yar baan dusha kaga yaacinayaa. Sisina waad ku yaacin kartaa sidoo kale mukasaraad fustuq wax alla wixii aad doonayso dusha inaad kaga yar qurxisato waad ku qurxisan kartaa. Asxaabay sidaas ayaan halkaas ugu soo wada guray. Sidaas ayaan miiska ku geyn doonaa insha Allah bismillaahi kariim. Dushana sonkortii yareede ka hadhay ku hadhay madeebada ayaan dusha kaga soo shubay. Sidoo kale jawsal hindigina dusha ayaan kaga yaacin doonaa. Sonkortu way iska dhaadhici doontaa bileerka ayay guntiisa tegi doontaa. Quraac iyo aad maasha Allah u ahayna
dawo inoo hal saasuu inoo ahaan doonaa insha allah bismillaahi kariim asxaabey tijaabiya oo insha allah isku daya haddii aynu eegno muuqaalkiisa dawaynu aragnaa saas buu yahay gudihiisa haddaynu eegnana asxaabey wakaa sidaas ayuu u bisil yahay maasha allah dari wahash weeyaan dhankiisana kama sheekeyn karo ويأخذ العقل والله waxaan ku yiri waa maasha allah ayuu yahay bikulli macna alkalima marka insha allah waxaan rajeynayaa inaad madbakheena iyo meheradaha waynu ku camiri doono asxaabey meheradaha quraacan 2 casho 3 casho ma ooli karo maalin kaliya ayuunbuu shaqeeyaa haddii uu 2 casho iyo maalin yaalo si kaloo adag ayuu noqdaa marka dadka meheradaha ay isku sameynayaan inta dalabkooda ah uun ha sameeyaan maalin qura kaga dhamaanaysa insha allah sidaas waxaan idinku dhaafayaa amaana allah insha allah bismillaahi kariim